واتهي وركي أو فافحسن kadib markii wasaaradda waxbarashada dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ku dhawaaqday in dib loogu laabanayo imtixaanaadka dugsiga sare ayaa ardayda sanadkan ka baxaysa dugsiga sare ee magaalada Kismayo waxa ay banaanbax ay ka dhigeen gudaha magaalada Kismayo iyagoona markaasi ka biyo diidan go'aanka ah in ardayda ay mar kale ay dib ugu laabanayaan imtixaanaadka warbixin amuurtaasi la xiriirta waxaa noo diyaariyay wariyaheena Cabdullaahi Cabdi Xakiin Ismaaciil wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdullaahi goodax barre ayaa sheegay in la joojiyay imtixaankii dugsiga sare ee qaadisay dawladda Soomaaliya kaasi oo 3 maalmood ugu dambeysay ka socday inta badan gobolada dalka wasiir goodax la hadlay warbaahinta dawladda ayaa qiray in la helay su'aalaha dhammaan 6 maaddo ee la galay maalmihii Sabtida Axadda iyo Isniinta wasiirka waxbarashada Soomaaliya ayaan si cad u sheegin cid ka dambeysay su'aalaha la bixiyay waxaase uu carabka ku adkeeyay inay jiraan dad iyadoo bil Ramadaan lagu jiro dhaqaale ka raadinaya inay gataan su'aalihii imtixaanka ee loo diyaariyay ardayda asiye shay waxa taasi ka soo horjeestay karan banaanbaxay boqolaal ka mid ah ardayda ku jiray imtixaanka la joojiyay ee sanadkan dhameynayay dugsiyada sare ee magaalada Kismayo ardayda banaanbax nabdoon ku maray wadooyinka magaalada Kismayo ayaa tagay xarunta wasaaradda waxbarashada Jubbaland halkaas oo ay ka muujiyeen cabashadooda ku aadan imtixaanka dib loo dhigay qaar ka mid ah ardayda banaanbaxaysay warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in imtixaanka la laalay ay waqti iyo maskax galiyeen isla markaana aysan awoodin inay laba imtixaan galaan magacay waa Faadimo Ibrahim Aadan waxaan ka mid ahay ardayda dhigatay iskuulada Jubbaland gaar ahaan Kismayo maanta waxaan u soo baxay inaan dareenkayga muujiyo sababtoo ah anoo sooman 3 bari habeen iyo maalin ma seexanin intaas dadaalay habeen waa soo jeeday maalinna 2 saac soo baxo 6 saac ama 7 saac afaraha ku noqonayni taada kale qashkan iyo waxaan la sheegayo anaga ma bixinin mana doonanin inaan buddi wax qaadano anaga kama soo dhicin qash socda imaaday dawladana xaq ma u lahan inay ardayda ciqaabto cidii uu qashka ka soo baxay wasiirada ama meel walba qashka laga keenay in iyaga la ciqaabaan mudan anaga waa soo dadaalnay murugtii dhafarta naga baxay cid soo celin karta ma lahan magacay waa Maxamed Axmed Xuseen kana mid ah ardayda magaalada Kismayo degmadan saaka dareenkayga aad buu kacsan yahay waxa isku soo bandhigay dhammaan ardayda iskuulada magaalada Kismayo degmadan annagoo ka dhanaa hadalkii ka soo yeeray wasiirka waxbarashada federaalka dawladda Soomaaliya ee wasiir goodax barre hadalkaas baana taabtay dhamaanteed halkaas aan ka banaanbaxaynaa halkaas oo ah dhammaan ama gabi ahaanba 10 maado imtixaanka la galay dib baa loogu celiyaa 27 bishan waxaas waa ka dhiidiyeen magacay waa Zainab Cabdi Jaamac waxaan ka socdaa ardayda Jubbaland gaar ahaan magaalada Kismayo waxa maanta halkaan u taaganahay oo qorraxda ugu soo baxnay anagoo sooman waxa waaye dhibka iyo niyad jabka iyo dulmiga uu xalay goodax la soo fariistay xalay goodax la soo shirtagay ma soo jeedin 6 bari ma soo jeedin 3 bari waxa dhafreynay oo soo jeednay 2 bilood waxa imtixaan ku guda jirnaa oo dadaaleyna oo habeen iyo maalin soconaa 2 bilood ma yeelay wasiirka waxa fadhiday ladin la fududaayay waxa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi oo dhigtay gobolka ka mid ah ardayda iskuulaadka maamul goboleedka Jubbaland gaar ahaan degmada Kismayo ma soo banaanbaxnay war ka soo baxay wasaaradda waxbarashada ee dawladda federaalka Soomaaliya halkaas oo leeyahay imtixaan aan ku soo rafaadinay 12 bilood aan soo rafaadinay wax ka soo baranaynay la yiri hadaba la yiri imtixaankii waa la kansalay 27 bishan ayuu wasiirka waxbarashada Soomaaliya tilmaamay in dib ay u bilaabanayaan dhammaan maadooyinka imtixaanka fasalka ugu dambeeyay ee dugsiga sare isagoo sheegay in la baabi'iyay kuwii la galay maalmahan kuwaas oo habeen kasta dhex yaacay baraha bulshada Cabdullaahi Cabdi Xakiin Ismaaciil Jubbaland TV Kismayo